mahadinayaa kontomeeyada reer Khaatumo ee odayaasha ah ee meel fog ka kala timi ilaa Ceerigaabo ilaa Xudun Buuhoodle Boocame Laascaanood odayaasha ka yimi wuxuun baan maqlaa Khaatumo waa 4 qof war 4 qof iyo cid ka xajiimoonaysa madaxweynaha Khaatumo warsaanu aamini karno aanu dariiq u wada mari karno berri yaa walwal nagu haysa ninka maanta ka xajiimoonaya madaxweyne intuu sii joogi doono magacaaba wadan doono ayba tahay wax kooban ninka ka xajiimoonaya wallaahi waa abtinimo kasta waxa ka haboon tacagta loo dhigo wariyaan la qulaaqo raacin war waxba lagu heshiiyay war macnaheedii ma aha wixii baa dhamaaday wax waa ku heshiinay annakoo miir qabnaanuna ku heshiinay war arrimaha qodobka ugu horeeya ah dastuurka la furaya war guddi baa loo saaraya war waxyaalaha annaka noogu weyn ee dastuurka aan leenahay loo furo maba aha mid Khaatumo ah war mid Somaliland cusub oo dhan ay ka faa'iideysanayso weey war meel rule of law war meel sharci iyo kala dambeyn iyo constitutionality iyo hay'adaha dastuuriga ee la dhistay ay shaqeynayaan war dastuurka Somaliland wax badan baan akhriyay ka u arka marinka qure maanta u furan inuu ka yahay waxa yaab leh oo marnaba aan fahmaynin oo galabtadan aanu ka wada hadlaynay war Puntland baa nagu duulimaada Puntland baa siyaasad ahaan military ahaan dhaqaale ahaan nagu duulimaada warada riyaal oo nala garto gacanna siiya riyaal leeyahay war hadda marna waxa la oranayaa nimankan mar rumaysanayno waa harti waa daarood war bal hartiga iyo daaroodku habay ii dambeeyay war salkaba dhulka dhigi kari mayno war maamulka Buuhoodle maamul naga dul dhisaya ee ciidamo la sheegayo hadda kuwa horo dhowr boqolihina joogeen kuwa dhowr boqol oo horlana la qorayo waxa igu maqaalaa wadaad reer Xamara Gabil Cadaasa yaa looda waagi hore guryaha lagu xidhan jiray kuwa qalad ku dhacday yaa yimiyo saciibay markii hore maaleen islaantii baati warnimo ku saciibnay bay maalayaan ana jabla ma gambu yiri ila sug jab ana la maagane war saciib furte ana jabla ma ganay kaadi war hoy wallahi aanan aaminaynin Somaliland iyo Isaaq haddayan Puntland maanta rabta dhulka iyaga inay Garowe khasab magaala madaxdooda yiraahaan 30 kilomitir baanu xuduudka Somaliland soo galaynaa war haddaydan taa wax nagala qaban hadda waa kuwa annaka nagu riyaal war kuwa hadnaahaydeen meeshaas u socdaan war marka qaar kood waxay warar meedan afba ku wada hadleen qoliyahan warada riyaalow hab inakoo miir qabna war waxa inaga dhaxeeyaynu wada leenahay waa aaminsanahay inaynu wada abuurano madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo professor Ali Khaliif Galeyd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd halkan waxa fadhiya muxuu ahaa waa Ali Khaliif Galeyd anigu waxaan ogahay oo xaqiiqo inuu yahay Somaliland dhab inuu yahay waxa uu daliila waxa weeyaan dawladii 1993 boorama lagu soo muxuu ahaayay sameeyay waatan maanta aynu maalayne wuxuu ahaayay ragii muxuu ahaayay ugu adkaa ee dawladda muxuu ahaayay soo sameeyay ayuu kamid ahaa